وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho ee Afgooye waxaana booliiska oo halkan yimid markii qaraxu dhacay ay sheegeen in tiro ka badan 70 qofood halkan ay ku dhinteen marka loo eego xilliga oo ahayd goor hore oo subax oo dadku shaqeynay u kala tagayeen sidaa daraadeedna ay ahayd subax sabdiya oo ay tahay subax ugu badan ee shaqo loo kala laho gaarigan iga dambeeya waxa la ii sheegay in ay saarnaayeen arday gaaraysa 20 oo sida booliisku ay sheegeen dhigtay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho hal qof oo gaarigan saaran kama uusan harin sida naloo sheegay gawaarida kale ee dadku ka buuxeen ee waxyeeladu gaartay waxa kamid ah gaarigan kale ee caasiga ah ama PL-ka ee dadweynuhu raacaan sida ay Soomaalidu u taqaano waxa naloo sheegay isaguna inuu buuxay oo dadkii saarnaa ee waxyeeladu gaartay gawaarida kale ee aan ku aragnay inay gubteen waxa kamid ah gaarigan kale oo isagu qudhiisu dhammaantiis gubtay waxa naloo sheegay in ku dhawaad 4 qofood ay saarnayd oo aysan waxba ka harin sida ay noo sheegeen booliiska ilaa iyo hadda waxa soconaya gurmad la xiriira arrinkaasi baabuurta gubatay ayaa tiradoodu ay ka sii badan tahay ilaa 10 baabuur taasa ka dhigan in waxyeeladu ay wali aad u sii xoogan tahay sida daraadeed halkan waxa ku sugan ehelada dad fara badan oo raadinaya dadkoodii oo ay ku ogaayeen Somalia where a truck bomb detonated at a security checkpoint in the capital killing more than 70 people. Turkey's ambassador to Somalia confirmed that 2 Turkish citizens are among the dead. Authorities say the blast targeted a tax collection center during the morning rush hour in Mogadishu. No one has claimed responsibility for the attack yet, but Al-Qaeda-affiliated Al-Shabaab terrorists often carry out such attacks. A huge explosion was heard when a lorry exploded at the X-Control checkpoint here and killed scores of people and wounded nearly 100. And most of them are students from the university.